بسم الله الرحمن الرحيم وبرنامجكي دولمرو إبوخشديني دلك سلطنة عمان. أهلا وسهلا مرحبا يا ضيفنا، شرفتمونا إذ حللتم صرحنا، وقلعتنا وأشرق نورها، فوجودكم شرف وتكريم لنا. codka waxaa idiin soo tabinaya baasi xaaji busuri. Kameramaankana waa Ibrahim Abba oo booqday dalka Cumaan. Dalka saltanada Cumaan waa dal taariikh weyn ku leh dunida, gaar ahaan ganacsigii loo yaqiinay Indian Ocean Trade ama Swahili Trade Route oo loo yaqiinay. Dalka Cumaan waxay saameyn weyn ku lahaayeen dalalka bariga Afrika sida Soomaaliya, Kenya, Tanzania, gaar ahaan magaalooyinka xeebaha ah sida Muqdisho, Barawe, Marka, Mombasa, Lamu, Zanzibar, Kilwa iyo Dar es Salaam. caasimadda dalka Cumaan ee Masqat waxaa aad loogu ammaanaa siday u keediyeen taariikhdoodii iyo dhaqankoodii marka loo barbar dhigo dowladaha dariska la ah sida Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo Qatar iyo kuwa kale. Tusaale ahaan, magaalada Masqat waxaa ka mamnuuc dhismooyinka dhaadheer ee loo yaqaano skyscraperska. Sharci dowladeed oo adag ayaa jiro oo ah in guryaha ay ka dheeraan 40 mitir. sidoo kalena waa inay lahaadaan naqshad carbeed ama dariishadaha waa inay lahaadaan naqshad carbeed. taana runtii waxay u horseeday magaalada inay balac ahaan u ballaarato, neecaawda iyo dabeesha ayna si qurux badan ugu safarto dhulka. sida marka loo barbardhigo dowladaha dariska ah ay u caburan tahay ma aha Masqat. yani markaa fiiriso Dubai iyo meelaha kale waa hawadoodii aad ay u caburan tahay. taasna waxaa loo eeda la saaraa saraha aad u dheer oo yani awgeed. sidoo kale dalxiisayaasha dunida ka yimaada badankoodii ayaa waxay ku ammaanaan dalka Cumaan inay tahay dowlad ama dal aad u degan oo dadkoodii martisoorka oo aad ugu xeel dheer yihiin, oo ay dadkoodii tawaaduc badan yihiin, qurux dabiici ahna oo Ilaahay ku maneystay sida xeebaha, buuraha iyo webiyada iyo saxaraba, dhul saxara ah. marka runtii dalka Cumaan sanadahan dambe dhanka dalxiiska aad ayuu dhaqaalahoodii u kobciyey. awalkoodii hore macnaa batroolka ayay xoogaa lacag ka soo geli jiray, laakiin hadda dhanka dalxiiska ayaa aad dhaqaalahooda u kabay. magaalada Masqat markaa ku dhex socoto waxaa arkaysaa suuqa caanka ah ee loo yaqaan suuq Matra. waa suuq qadiimi ah oo waagii hore markii Indian Ocean Trade-ka uu jiray suuqan ayuu jiray. suuqa markaa ku dhex socoto waa dareemaysaa taariikhdeedii iyo yani taariikhda ay xambaarsan tahay. sidoo kale suuqa waxaa lagu yaqiinay ama Cumaan loo yaqiinay dalkii baquurka ama lubaanta baquurka ah. marka suuqana markaa gasho isla markiiba waxaa kuu soo carfaya lubaanta baquurka ah. lubaanta baquurka ah sidoo kale dalka Soomaaliya ayaa laga soo dhoofiyaa qaar ka mid ah, qaarna wuxuu ka baxaaba geedaha dalka Cumaan, gaar ahaan Salaala. gobolkaasna waa gobol Soomaalida ay u badan yihiin. Soomaali badan oo ayaa degan oo dhalasho Cumaaniyiin haysto oo qayb ka ah dalka Cumaan. dhanka siyaasadda, dhaqaalaha iyo qayb weyn ayay ka yihiin bulshada Soomaaliyeed oo haysta dhalashada Cumaanka ah. sidoo kale bartamaha magaalada Masqat waxaa aad uga soo muuqda masjidka weyn ee Sultan Qaboos uu dhisay. masjidkan ayaa dad badani ay soo booqdaan, gaar ahaan dalxiisayaasha. kuwa aan muslimiinta ahayn waxay booqdaan subaxdii hore. masjidkan dadka ka warbixiya waxay mar walba ay sheegaan alaabaha kala duwan ee lagu dhisay, sida 300,000 oo tan oo sandstone-ka loo yaqaan, dhagxaan laga keenay dalka India. sidoo kale carpet, Persian carpet oo laga keenay Iran oo 24,200 square meter ah. waa carpetka ugu weyn ee labaad ee dunida oo Persian carpet oo Persia lagu sameeyey. wuxuu culeyskiisa ahaa 21,000 oo kiilo. sidoo kale marbleska waxaa laga keenay dalka Italy
waxaa kaloo jiro tileska ama mutuneelaha waxaa laga keenay Morocco, dalka Morocco. sidoo kalena dalka Austria waxaa laga keenay nalalka ama crystalka oo 600,000 oo Swarovski crystal ay leeyihiin. sidoo kale tiirarka masaajidka waxaa laga soo maanguuriyey ama naqshada laga soo guuriyey masjidka oo garanaad ku yaal Alxamra la yiraahdo. runtii waa masjid aad u qurux badan oo weyn oo 25,000 oo musalliin ay ku dukan karaan. ugu dambeyntiina waqtigoo nagu yara awgeed ayaa waa booqan weynay magaalada Salaala oo ay Soomaalidu ku badan yihiin deegaankaasi. laakiin waxaa inoo suuro gashay inaan soo booqano mantiqada xeebeedka ah ama deegaanka xeebeedka ah loo yaqaan Sur. waa deegaan oo ku yaalo furdadihii ugu muhiimsanaa ee dalka Cumaan ee qayb weyn ka ahaa Indian Ocean Trade-ka. sidoo kale waxaa la yiraahdaa sheekafaneedka Zindabad la yiraahdo oo ninka badmareenka ah Zindabad waa meesha uu kasoo unkamay ayay yiraahdaan. waxaa kaloo inoo suuro galay inaan booqano deegaanka Ibra loo yaqaan. waa magaalooyinka qadiimiga ah, wuxuu ahaa magaalooyin ganacsi oo aad u shidan. waxaana lagu tilmaamaa in ahayd magaalo xadaaro weyn ku lahaa dhanka diinta, waxbarashada iyo farshaxanka. sidoo kale waxaan booqanay Jabal Akhdar. Jabal Akhdar waa wuxuu ka mid yahay buuraha Cumaan ugu dheer. الشمس هو اعلى ارتفاع، اعلى مره اعلى 3000، هذا 2800. لكن هذا جبل الاخضر متسع، يعني منطقه متسعه، في منطقه مساحه. هنا معروف، هنا معروف كلهم يعرفون. يعني عدد سكان جبل الاخضر الحين ما يقارب 10,000. جبل شمس ما في مساحه، عدد السكان ما يقارب 500 شخص كذا يعني. بعيد ولا قريب؟ قريب من هنا، يعني مسافه 90 كيلو مره بعد نزوه. فين ايه؟ هذه القرية الثانية. القرية الثالثة هذه الشرقية، هذه مدرجات جبل الأخضر. هذا يجمع هني الماء، ماء العين، لأن نسبة العين ماءها بسيط، فيجمع الماء هنا. الإترس هذه فل، تقدر تسقي الأشجار بسرعة. هذه هي نفس العين، هذيك القشرة، القرية اللي فيها رمان.
waa meel aada u qurux badan oo ay biyo mareeno leeyihiin, waadiyo ay leeyihiin oo aada u qurux badan. taasna waxay ka matalaysaa quruxda dabiiciga ah oo dalka cumaan ay leeyihiin. ayagana si fiican ay uga faa'iidaysteen dhanka dalxiisayaasha. ugu dambeyntii waxa aan ka baran karnaa dalka cumaan sida ay u keydiyeen taariikhdoodii iyo dhaqankoodii iyo hiddahoodii, oo taasna ay u suuragelisay in uu aada u horumaro dakhliga kasoo gala dalxiiska iyo dhismaha shuruucda ay soo rogeen oo ah in dhismooyinka aada u dhaadheer aan laga dhaqangelin magaalada, taasna u keentay in magaalada balac ahaan ay u ballaarato. بسم الله وبالله تفضل. ايش هذه؟ هذا عمل السعفيات. السعفيات خوص من النخيل، هذا من نخيل. من النخيل أيوه. ونعمل بالحاجات هذه المشكلات هذا. لا نقزل الوقت فيه والحمد لله. الحمد لله. واحد شاشة واحد نسكن جزني غنيمة تصبر فيه جهز جملها بالعمر تنقص ضمنا والنور عين جينا جدلها عبد الملك يا شورى ويا نورة ومسيد. كبار 5 ريال، صغار ريال 3 ريال. هذا هو الشكل. ما شاء هذا هو. الله. خلاص. ايش الشكل خلص فقط. لمسة من فوق. الشكل خلص. هذا عندك الخرص اللي هي الخرص الصغير او القرة نسميه. الحين بنشوف كم صناعة المبخر، نقدر اي شكل اسوي. هذا عندك المبخر. نسوي المسكة. طبعا هذه عاد هي راس المبخر. هذه هنا نسميها عاد الركبة أو المسكة اللي تمسك فيها المبخر. هذه الطريقة. طبعا لازم تكون شوية طينة أو في عينة فخار شوية تكون رطبة. في ناس تقول ليش ما تلبس جلافز؟ الجلافز ما أعرف الحين الشكل رطب أو يابس أو قف، ما أعرف أميز مع الجلافز. أما باليد عادي. طبعا هذا ما في أي مواد إضافية، ما في 0%. عبارة عن تربة مثل ما قلت، تربة حجرية جبلية مع الماء، تمر لعدة أيام ما يتكون معنا الطين كتبخير وتصليب وتعرض للشمس. هذا المبخر. نقدر الحين نسوي صحن.
hawadana ay noqon hawa ay caburan, hawadoodii ay noqoto hawa qurux badan. marka waxaan ku boorinaynaa magaalooyinka hadda dhismaya sida deegaanada Galmudug iyo yani Baydhabo iyo gobolada hadda dhismaha dib u dhiska aad u socdo inay fikrad ka qaataan magaalada Musqat hadduu ay idmo insha Allah taala ina dhismayaalkoodii ay Soomaaliyeeyaan hidaha iyo dhaqankana ay keediyaan hadduu ay idno. anagana Muqdisho iyo magaalooyinka horena aan keedino dhismooyinkii hore si ay anaga cashar noogu noqoto dhanka dalxiiskana uu dakhli badan noogu soo galo hadduu ay idmo. waa barnaamijkii dhulmarow oo ay idin soo gudbiyeen walaalkiin Baazi Xaaji Busuri iyo Ibrahim Abba. waa inuu mar kale iyo magaalo kale oo xiiso leh hadduu ay idmo. baarakallahu fiikum.